Maraykanka iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya 48 saac ee la soo dhaafay waxa uu socday wada xaajoodyo ku wajahanay in dhammaan dhinacyada Itoobiya xaaladeeda dhinac loo rido. 7 qodob oo wadi sabab geeyay ergeyga gaarka ee Maraykanka u qaabilsan Geeska Afrika ayaa shaqeyn waayay. Abiy waa uu diiday aqbalida dalabka Maraykanka ee in xukunka uu dhaafo. Wuxuu ku adkaystay in sifa sharciyo loo doortay oo san kaligi talis ahayn awood militarina uusan ku imaan. taas beddelkeeda ay USA taageerayso koox doonaysa xukun boob. Abiy wuxuu sheegay inuu aqbalay warkooda markii ay ciidanka Itoobiya joogeen Tigray oo ay ka soo baxeen bartamihii sanadkan. taas beddelkeeda heshiiskii la gaaray ay iyaga Maraykanka iyo TPLF ka baxeen oo ay duulaan ku qaadeen gobollada Amxaarada iyo Cafarta Itoobiya. Maraykanku waxa ay soo jeedisay in TPLF laga saaro liiska argagixisada jidadka Tigray la furo kooxaha ku jira gacanta Itoobiya ee xabsiyada laga sii daayo ee Tigray u dhashay lana bilaabo wada xaajood. Itoobiya qodobkan waxa ay ka soo dhaweysay in wada hadal uu furmi karo haddii TPLF ay nabad uga baxaan dhammaan dhulka ay qabsadeen markii ciidanka Itoobiya ay ka soo baxeen waqooyiga dalkaas. warkaasi waxaa sheegay wasiirada warfaafinta iyo cadaaladda ee dalka Itoobiya. saqdi dhexe ee xalay ayaa la xaqiijiyay in labada dhinacba ay kala quusteen markii ay Addis Ababa ka carootay abaabulka Maraykanku uu ka wado gudaha dalkeeda ee ay ku sheegayso in jamhada ama ururo mucaarada ay ku kulmisay Washington. dhinaca kale Maraykanku waxa ay garab waday fariimo cabsi gelina oo ay ku furayso amniga Itoobiya. muwaadiniinteeda ayay ugu baaqdeen inay soo xaadiraan safaaradda Addis Ababa si looga daadgureeyo Itoobiya, taasoo xukuumadda Abiy u aragtay mid la doonayo in lagu dimiyo amniga Itoobiya lana muujiyo in dagaal ay ka dhacayaan caasimadda. labada dhinac hadda sida wararku ay cadeynayaan wax badan oo wada hadal uma harin wayna kala jahaysan doonaan. isweydiimaha soo degdegaya waxa ka mid ah maxaa xigaya. shaki male in labada dhinac hadda ay u bilaaban doontaan hardan culus oo dagaal ah. TPLF iyo OLA waxa ay sheegayaan inay gelayaan Addis Ababa si cad. Abiy iyo xukuumaddiisuna waxa ay leeyihiin waanu isaga filanahay oo dib ayaan ugu celinaynaa kooxahan halkii ay ka yimaadeen. isgarabsiga TPLF iyo OLA oo Oromo ah sidee ayay dhexdooda uga heshiin karaan dagaal ka dhana Addis Ababa lagu qaado Oromada qaybahooda Abiy aysan isjeclayn waxa aysan iska sii jeclayn inay arkaan Tigray taangi ku tagaya Addis Ababa. taas oo ay shalayba ka digeen jamhadda OLF oo madaxdeedu xabsi guri ay ku yihiin Addis Ababa. waa caqabad sii daahin doonta dagaalka. in TPLF dib u qabsatay Itoobiya oo ay ka taliso isweydiinta iyo sawirideeda dad badan ayaa ka dhigaya mid aan suuragalba noqon doonin maadaama dhammaan darafyada ay isku hayaan wax ka badan inta ay Abiy hadda isku hayaan. gudaha Tigray waxay aaminsan yihiin inaysan qabsan karin xukunka mar kale. durba dadka saadaalinaya xaaladda Itoobiya ayaa leh Maraykanka oo horsocod ah TPLF ayna ku caawinayaan nooc kasta oo taageera si ka badan sida ay hadda u garab siinayaan ee warbaahinta iyo saadka. beddelkeeda waxa ay Djibouti ka gelinayaan durba hub ay ku taageeraan kooxda, laakiin xukunka marka ay joogto si kale ayay u eegi doonaan. 2 Oromada qaybtooda aan Abiy raacsanayn oo ay Maraykanku xoogga saari doonaan sidii ay isfaham ula gaari lahaayeen TPLF lana helo cid lagu bedelo Abiy oo ka soo jeedo qoomiyadda Oromada haddana aysan jacayl badan u haynin dhinaca Amxaaradu. 3 cadaadiska caalamiga iyo baqdigelinta oo ay sii wadaan diblomaasiyiinta sirdoonka iyo warbaahinta Maraykanka si culays loogu saaro bulshada Itoobiyaanku in ay baaq u jeediyaan Abiy Ahmed. dhammaan arrimahan oo dhan waxay ku soo beegmayaan xilli Itoobiya gudaheeda maamulka Abiy Ahmed ay sheegeen inay qaadi doonaan tallaabo kasta oo nafura. ha yeeshee xaaladda dagaalka ayaa si weyn isu beddelaysa iyadoo oo maalmaha soo socda la go'aamin doono ama loo joogi doono cidda u dambaysa ee talada Itoobiya go'aamin doonta. ma jeceshahay inaad barato quraanka kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska Nuurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga quraanka higaada iyo culumta kale islaamka. wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda. shirkadda Somnet Export ee ku taal dalka India waxay ku soo dejinaysaa khamiisyada, shaararka iyo saraawiisha, kabaha, isbarbarka bajaajyada dawooyinka. wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.